kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel baa joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono arrimaha siyaasadda dalka Kenya oo si gaar aan u eegi doono dadka iyagu ilaa iyo haatan loo soo xulay inay u tartamaan xilka lagu magacaabo DCI-da ninka hogaamin doona ama hogaamiyaha ugu sareeya ee waaxda dambi baarista dalka Kenya oo iyadu ah laanta ugu weyn marka laga hadlayo amniga iyo waliba dabagalka waaxyada baarista arrimaha dambiyada ee ka dhaca gudaha dalka Kenya ayaa markan waxa la sheegayaa in Soomaalidu ay aad u soo codsanayaan helista xilkaasi taa oo ka dhigan in Soomaalida markan ay isbidayaan awood in ay markaasi gali karaan dawladda Kenya si guudna ay u dhaxgali karaan marka laga hadlayo iyadoo hore Soomaalidu uga helay xilal xukuumadda cusub ee madaxweyne William Samoei Ruto taa oo ugu weyn lagana xusi karo in wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya uu noqday Honorable Adam Barre Ducaale ka oo isagu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya in badan la soo halgamay marka laga hadlayo ololaha doorashada iyo waliba siyaasadaha isdiidan xilligii ugu adkaana uu garab u noqday hadaba barnaamijkeena ayaan qodobadaas iyo wixii ku saabsan xilkan la magacaabay oo aan wareysi gooni ah kala yeelan doono Cabdiraxmaan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina oo si shargareeya idinkoo marinaya mareegaha iyo bogaga aad ku xiriirtaan idinkoo la wadaagaya linkiga muuqaalka se like gareeya channelkana rukumo si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay dhacdooyinka xaqiiqda ku saleysan arrimaha Kenya caalamka intiisa kale ilaa iyo haatan waxa la sheegayaa ilaa ku dhawaad 12 qof in ay soo codsadeen xilka markaasi ah DCI-ga ninka hogaamin doono taa oo loo soo gaabiyo Directorate Investigation of Criminal ama waaxda dambi baarista dalka Kenya taa oo horey iskaga casilay ninka lagu magacaabo Kinuthia ka oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii xilka ka degay dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxa dhacdooyinka waaxdan ka dhacay lagu xasuustaa in madaxweynaha haatan hogaaminaya Kenya William Samoei Ruto loo adeegsaday waaxdaasi maadaama ay saameyn culus markaasi leedahay marka laga hadlayo soo qabashada xirista iyo dambi ku soo oogista oo markaasi baaritaanada marka ay sameeyaan keeni kara in loo gudbiyo markaasi dacwadoogaha guud ee dalka Kenya in qofka la soo dacweeyay uu markaasi soo xukumo soo xiristiisa hadaba barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa hay'adanse maxay kaga duwan tahay hay'adaha kale ee dalka Kenya maadaama inta badan la sheegay inay tahay waax sensitive ah oo markaasi xaaladeedu ay adag tahay qofka loo xulayana uu noqon karo qof markaasi dhinacyo badan ka dhisan hadaba Soomaaliya se maxay kaga duwan tahay oo marka laga hadlayo waaxdan maxaa laga xusi karaa amaba Soomaalidu sidee ayay ku ogaan karaa waaxdan Soomaaliya maadaama ay leedahay dhankeeda oo aan faahfaahin idinka siin doono Cabdiraxmaan ayaan soo dhaweynayaa oo markaasi barnaamijka marti inoogu ah Cabdiraxmaan soo dhawow waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga sida aad inoogu hurtay si aan u helno xogo dheeraad maadaama aad soo indhiindhaysay wararkii ugu dambeeyay dalka Kenya bal intaan u gudagalin barnaamijka xaalka guud ee dalka Kenya maxaan kala soconaa aad iyo aad u mahadsan tahay marka hore dalka Kenya maanta xaalkiisa aad ayuu u degan yahay maanta waa maalin iska fasax ah waxa la dabaaldegayaa maalinta dumaaduna la yiraahdo culture ayaa la yiraahdaa madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto wuxuu ku sugan yahay dalka Tanzania gaar ahaan magaalada Dodoma caasimadda dalka Tanzania maanta ayuu waxa uu la kulmay dhigiisa Samia Suluhu halkaas oo ay ka wada hadleen qaabka ganacsiga Kenya iyo Tanzania uu kor ugu sii kici karo haddaan gudaha u galo topica ka hadlayso waxaa jira nin Soomaali ah oo u cadcad inuu noqdo shakhsiga la wareegi karo xilka madaxa DCI mise laanta dambiga dalka Kenya oo loo yaqaano DCI ninkaasi waxa lagu magacaabaa Maxamed Amiin wuxuuna ka soo jeedaa mid ka mid ah ismaamulada ee degan shacabka Soomaaliyeed ee dalka Kenya وهاجاج نودستان ayaa doola jeeda bal waaxdan DCI-da faahfaahin naga si Soomaaliya se ma leedahay DCI-da Soomaaliya waxa la yaqaanaa NISA ayaa loo yaqaanaa waxaana hogaamin jiray ninkii xilka wareejiyay ee Fahad Yaasin haddana waxa gacanta ku haya Mahad Salaad balse Kenya waxay leedahay wax loo yaqaano DCI waxayna ka agood badan tahay midda Soomaaliya maadaama hadda ninka ku fadhiyo uu agad u lahan karo in uu xarig inuu soo qabto wasiiro inuu soo qabto xildhibaano sidoo kale in uu soo qabto shakhsi kasto waxa ka ahayn madaxweynaha wuxuu soo qaban karaa madaxweyne ku xigeen marka waa nin agood badan wuxuuna qaban karaa mise uu maxkamadda horgeyn karaa shakhsi kasta uu doonayo isagoo ah xildhibaan wasiir iyo madaxweyne ku xigeen laakiin agood ma lahan karo in uu xabsi geeyo mise uu maxkamadda geeyo madaxweynaha xilka fadhiya
waa hagaag marka waa dambi baaris oo markaa qofka dacwad lagu soo oogi karo baaritaan ay ku sameyn karaan xitaa arrimaha argixisada ayay qeyb ka yihiin oo markaasi lagu saleeyaa bal intaas markaan ka gudubno waxaa sheegtay xilkan oo sensitive in Soomaali aad u tiro badan ay soo codsadeen oo North Eastern kasoo jeedaan oo weliba shakhsi ah bal qofkaasi xilligan maxaa uu ka hayaa dalka Kenya mise waa qof shacaba amaba siyaasi iska ah oo isagu xilkan jeclaaday inuu qabto una tartamo xilkani ninka waa Soomaaliyeed ee u tartamayo mise u cadcad inuu qabto waxa la yiraahdaa Maxamed Amiin Sahro oo sheegay wuxuu ka soo jeedaa ismaamulka Wajeer waxaan ognahay ismaamulka Wajeer sidoo kale waxa ka soo jeedaa abaanduulaha ciidamada booliska dalka Kenya ninka la yiraahdo Nuur Gaabu marka waxay u muuqataa in reer Wajeer mise Soomaalida ismaamulka Wajeer ay diyaar u yihiin in ay si fiican uga soo muuqdaan dowladda dalka Kenya waxaan ognahay in wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya uu yahay nin Soomaaliya ninka hogaaminayo booliska uu yahay nin Soomaaliya marka hadduu la wareego laanta dambi baarista dalka Kenya nin Soomaaliya marka waxay u muuqataa in ammaanka dalka Kenya uu gacanta ugu jiro shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ninkani hadda wuxuu ka tirsan yahay wuxuu abaandulo ka yahay waaxda la tacaasho arrimaha gudaha ee booliska dalka Kenya oo loo yaqaano Internal Affairs Unit loo yaqaano ayuu isaga hadda hogaamiya marka wuxuu ku soo caanbaxay sanadkii 2007 markii Kenya ka dhacday qalalaaso waxaa la geeyay dhinacaas iyo Hague halkaas oo uu qayb ka ahaa dadkii dacwooyinka ka soo gudbay ma soo gudbinin dadka ka ahaa maxal lahaa witnesska ka ahaa kiiska marqati ka ahaa marka wuxuu la xasuustaa in uu eedeymo u soo jeediyay ninkii markaas ahaa hogaamiyaha EAC waxay ahayd Electoral Commission of Kenya tii ahayd ayuu dacwad ka geeyay marka ninkan Soomaaliga hadduu la wareego DCI marka waxay noqon doontaa in Soomaali dalka Kenya ay aad iyo aad uga soo muuqan doonaan jagooyinka ugu sarsare ee dowladda William Samoei Ruto waa hagaag Soomaalidu markii la siiyay aadan bare waxay ka soo jeediyeen dhaleeceen aad u tiro badan xilligan waxay u muuqataa in markale uu dib iska qabtay xilli la ogaa in National Police Service-ka ay markaasi magacaabeen abaanduulaha oo xilligan sugaya maxkamad maxaan ku raadaa baarlamaanka in la horgeeyo golihii wasiirada sidoo kale wali lama horgeynin Soomaalidu saameyn ciinkay ay ku yeelan kartaa siyaasadda dalka Kenya gaar ahaan dhanka amniga oo aan xasuusan in Soomaalidu aad loo dhibo North Eastern waxaa jirtay dad aad u tiro badan in hay'adan DCI-da ama niiska ay la wareegeen amaba ay qabsadeen dad aad u tiro badan kuwa oo lala xiriirinaya inay xiriir dhow la leeyihiin kooxaha ka dagaalama Soomaaliya oo iyagu ilaa iyo haatan la la'yahay ninkan hadduu helo suuragal ma tahay wixii dadka ka nool in dib loo helo marka hore ninkani barito talaado wuxuu hortagi doonaa National Police Service ayuu hortagi doonaa halkaas oo laga qaadi doono maxkamad imtixaan kadibna hadduu ku guuleysto waxa lagu dhawaaqi doonaa inuu yahay madaxa laanta dambi baarista dalka Kenya loo yaqaano DCI hawaarun sa sheegtay haddii uu kursigan helo Soomaali fara badan ayaa waxa jirta dhibaato fara badan kala kulmo booliska dalka Kenya waxaan ognahay dhawaan isbuucda soo dhaafay in gabdho Soomaaliyeed lagu qabtay garoonka JKIA iyagoo wato lacago aad u fara badan waxay wateen in ka badan 800 oo kun oo dollar ayay wateen marka Soomaalida dhib badan ayay kala kulmaan booliska iyo sidoo kale DCI-da laakiin hadduu nin Soomaali la wareego wax laga yaabaa in Soomaalida ay ka yaraato kiisaska faraha badan ee lagu furo teeda kale waxaan ognahay in Soomaalida ay dhibaato fara badan kala kulmaan dhinaca qaadashada baasaboorka iyo sidoo kale waxa loo yaqaan ID-ga markay doonayaan inay qataan baasaboorka waxa lagu qasbaa in ay soo maraan dhinaca DCI-da marka waxa dhici kartaa in haddii Maxamed Amiin uu la wareego jagadani in uu u fududeeyo Soomaalida in ay qataan sharciga dalka Kenya sidoo kale baasaboorka وهجاج أدى يوم السنة كاسينا وحوها عبد الرحمن ويسقو إن لفلانقيني برامج جارون كويجي دونه عطسيادا أي جود بسنة يان صومالي ذا يولي بكيان ككله وترتمد حلكا هجانكا واحدة دم باريستا DC أيضا Directorate Commission of Investigation Laws وجابيو تا ومركزي حلجن يدو أحمد بركاسي بنان ونباهن هجان يدونا صومالي ذو مركنا يسبيد سو أود لنع هجامين تأيانا حلجن وحا أي رجوين كم مجنيان شعب كصومالية ee Kenya sida loo markaasi heli lahaa hogaan waaxdaasi hogaamiya ee DCI-da oo Directorate Criminal of Investigation ama waaxda dambi baarista cidda noqon lahayd Kinuthia ayaa xilkan iska baneeyay markii uu ogaaday in lagaga guuleysto hogaanka uu taageeraya William ninka lagu magacaabo Raila Amolo Odinga maadaama saaxiib dhow la ahaa Uhuru
Mugai Kenyatta inta badanna loo adeegsan jiray hay-adan in iyadu lagu qumaado dadka ka afkaar duwan hogaankii xilka baneeyay sida Soomaaliya ka dhacday oo xilligii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hogaaminayay isagu uu adeegsaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isagu xilka nisahaya ka oo dhigma DCI-da dalka Kenya waxaana xilligan laga dhursugayaa natiijada kama dambaysta ee dadka iyagu loo soo xushay inay qayb ka noqdaan tartamayaasha iyadoona imtixaano iyo waliba dib u eegid background-kooda waxbarashada iyo halkay ka soo jeedaan iyo inay dambiye ka soo galeen dalka Kenya si gaar ah loo eegi doono. Maxamed Amiin ayaana Soomaalidu waxa ay xilligan tahay kuwa iyagu u rajeynaya guul weyn haddii uu ku guuleystana waxa ay farxad iyo waliba awood dhanka hogaaminta dalka Kenya u noqon doonta Soomaalida si guud si gaarana reer Wajeer ayaa markan u dabaaldegi doono in ay noqdeen shacabka Soomaaliyeed ee North Eastern iyagu ka helay xukuumadda William Samoei Ruto awood aad u tiro badan marka laga hadlayo hogaaminta dalka Kenya dhinaca amniga oo iyagu ay noqon doonaan shaqsigii labaad oo reer Wajeer inuu hogaamiyo ciidamada dalka Kenya. wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal rukumada channelka oo subscribe inoo saara muuqaalkana la sii wadaaga saaxiibadiin Soomaalidu waxaanu rajaynaynaa guul idinkana ku taageera afkaartiina iyo sida aad ugu faraxsantiin oo ay suuragal tahay qeybaha afkaaraha laga dhiibtay commentiga haddii aad ku daawacdaan inay helaan siyaasiyiinta amaba dadka iyagu markaas ku jira dowladda lana eegayo sida loogu faraxsan yahay fikirkaaga ayaad noogu reebi kartaa. tan iyo kulanti dambe intaan dib ugu kulmayno barnaamij warbixin warar kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.